adduunka waxa uu bilaabmaya sanadka 2024 balse dalkani waxa uu gelayaa sanadka 2081 taasoo ay micnaheedu tahay in dalalka adduunyada oo dhan ay ka horeeyaan 57 sannadood waxa ku nool ninka ugu gaaban guud ahaan adduunka oo dhan calankoodu uma samaysna afarta gees sida dalalka caalamka oo kale balse waa uu ka duwan yahay waxaana xusid mudan in aan weligii la gumaysan marka dadka shisheeye ay booqdaan dalkan waxa loo sheegaa inaanay isticmaalin gacantooda bidix marka ay cuntada cunayaan waxaanay aaminsan yihiin inay tahay wasakh sidoo kale qof madaxa kama taaban kartid waayo waxa ka dhaadhacsan in madaxu yahay halka ugu mudan ee qofka bini'aadamka ah waxa ku yaala fiiqa adduunka ugu dheer maadaama ay ku taallo buurta adduunyada oo dhan ugu dheer ee Mount Everest sidoo kale harooyinka ugu qotada dheer dunideenna ayaa ku yaala halkan dalkan oo ku yaala qaaradda Aasiya waxa lagu tilmaamaa mid dunida inteeda kale go'doon kaga jira muddo ka badan 100 sano iyadoo gumaysi la'aanta aan la gumaysanay ay ka dhigtay mid dadkiisu ay ugu noolaadaan dhexdiisa cuqdad la'aan maxaa yeelay dalalka la gumaystay ee dunidu waxay ku doodaan in kii gumaystay uu dhibaato ku falay Nepal ayaa leeyahay magaciisa iyadoo Soomaali badan ay ugu dhawaaqaan Nepal macnaheedu waxa weeye dhulkii dhogorta halkan waxa ku dhashay mid ka mid ah nimankii aasaasay diimaha ugu qadiimsan adduunyada iyadoo aan laga tagi karin inuu yahay dalka kaliya ee carruur yaryar ay dadku ilaahiye ka dhigteen oo ay caabudaan dadkaasi kula muuqday inay yihiin kuwa cawaan ah ma rumaysanaysaa inay door weyn ka qaataan nabadgelyada adduunka oo dhan isla markaana iyaga dhexdoodu ay ka dhaarteen colaado iyo dagaallo dhexmara waxa ay ku dadaaleen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyagoo iska dhaarsaday inaanay dhiig iska daadin inkasta oo ay yihiin dal yar haddana waa dalka toddobaad ee ciidamo nabad ilaalin ah ka hela qaramada midoobay inkasta oo aanay dadkani ahayn dad muslimiina haddana waxaa xusid mudan in dalal badan oo muslimiina oo ay Soomaalidu ka mid tahay aanay nabadgelyaba dan iyo daaratoona ka lahayn kuwaas oo isugu tukubaya ulbo adigoon ku salcaamin oo kalba xaafad saloolan sikinka waxa taagan seeka kula diyaara haye seeko ee halkaas uu farta saar Axmed seeka ku yaalo أحمد سيكا كو يالو هالكا صوبا فرتا سارة هالكا صوبا فرتا سارة أحمد سيكا كو يالو وربيانو كسيجن هذا روا كسيجن وربيانو كسيجن فرتا صوبا فرتا سارة سيكا.com أحمد سيكا أنا أنكم حولي هالكا أحمد سيكا كو يالو هالكا بالكا يسكت شبيني واي نادر هالكا صوبا فرتا سارة وركورنا وان كهليا وحول بوت كهليا وروا بهتصتي نادر بعد ما هتصتي هذا السوكر نقولوا تي فيك أحمد تيجي وحبها تجن وأنا أنكم حولي ودي باك وايستي wararkii ugu dambeeyay adduunka iyo warbixino xiiso leh kol walba kala soco baraha bulshada ee Seeka Media sida Facebook, YouTube, Twitter, TikTok iyo Instagram intaba mahadsanidin